رمضان وابل الصوم وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسار ورتال عتق من النار إن شهادة لها لقفك إن نارت إلهي كحريي وإن شركي النار تابا دون. رمضان هو شهر الصيام، هو شهر القيام الليل، هو شهر النصوص التي تحث على العطاء. من يحصل على الشهادة بأن الله قد حرره من النار فلن تمس النار جسده. Ramadan is a month of fasting. It is a month where people wake up for pre-dawn meals. It is a month where the middle part saves one from hellfire. If a person receives the testimony that God has freed them from hell, then hellfire will not touch their body. Assalamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadwa saxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan maanta waxaanu ka hadli doonaa maan ku sharxi doonaa sidee baad muuqaaladaada ugu turjumi kartaa luqado kale. Sidaynu ognahay maalmihii dambe waxa fira lahaa inaynu aragno muuqaalo original koogu Soomaali ahaa ama qofka duubay yani Soomaali ku duubay oo luqado qalaad loo bedelay sida English iyo Arabic. Kaliya loo bedelay ma aha yani xitaa fiidiyoogii in dhaqdhaqaaqa afkiisa aad moodaysid baynu qofkan ku hadlayo sidoo kale codkiisu u eegyahay yani isla codkii qofka originalka fiidiyooga iska lahaa. haddaba qaabkeeyaad qaab noocaas ahaan yani kaliya ma aha inaad codka turjumaysid ee waa xitaa inaad muuqaalkii turjumaysid oo qofka laga garanayn in yani uu sugu ku hadlayo luqadan iyo in kale. sidoo kale yani codkii originalka ahaa lagu sameyn doono waxaan isticmaali doonaa AI. haddaba ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka. haddaba marka horeysa waxaa jira AI fara badan oo aynu yani ku turjumi karno muuqaaladeena aynu ugu turjumi karno luqado kala duwan. AI-ga ugu caansan ama ugu fiican ayaa waxaa la dhahaa Heijin, laga yaabaa inay badankiin maqasheen. marka horeysa waxaad soo furan doontaa Google Chrome-kaaga ama browser-kaaga. Google Chrome-kaaga ama browser-kaaga ayaad soo furan doontaa marka horeysa, kadib qaybta searching-ka ayaa waxaad ku qori doontaa Heijin. qaabkaan u qoray ayaad Heijin u qori doontaa. waa kan website-ku waxa soo kale linkigiisa waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta hoose description-ka. waad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato haddii aanu ku kacsanin already daanu Gmail kugu xidhnayn mid ka mid ah Gmail-ladaada ayaad gashan doontaa. sidoo kale application-kan sida caadiga ah waa lacag balse wuxuu ku siinayaa bishiiba 3 fiidiyo oo free ah oo nooca alaaliya nooca doonteed ka samaysan kartid. markaa yani si aad ugu isticmaashid free waxaad samaysan kartaa yani hadba inaad Gmail ku soo kacsato oo Gmail kasta cusub aad ku soo kacsato yani 3 fiidiyo free-ga bishii uu leeyahay. sidoo kale muuqaalada uu samayn karaa waa muuqaal ilaa gaaraya 30 minute. iminka markaad sidan u soo gasho yani interface-kiisa hore waa noocan oo qaabkan ayuu kuugu soo muuqan doonaa. waxaad awood u leedahay yani waxyaabo fara badan inaad Heijin ku samayso. kaliya ujeedada loo isticmaalo ma aha in muuqaalada lagu turjumo balse ujeedkeenu inagu socono ayaa ah inaynu muuqaalada qaabka loogu turjumo application-kan Heijin aynu barano. marka horeysa yani qaybtan waxaynu ka arkanaa waxyaabo kala duwan. imika option-kan oo aan fiidiyooda ku sameeyo iga xidhan ayaad ku samaysan doontaa. marka horeysa waxaad oran doontaa create video qaybta ay ku qoran tahay ama halkan kale ayaad ka dooran doontaa. create video markaad timaado wuxuu ku siin doonaa laba option oo ah fatter video iyo video translation. waxaynu u soconaa inagu waa video translation oo mid kani labaad ayaa dooran doontaa. qaabkan markuu ku soo siiyo meesha drag and drop ayaad ku dhufan doontaa oo videoga aad u baahan tahay in lagu turjumo ayaad gallery-ga ka soo qaadan doontaa. iminka videogan Sheekh Mustafa aynu u baahannahay. qaabka markaad soo qaadato videoga bartan kuu soo dhigmo create new translation baad ku dhufan doontaa. haddaba markaad ku dhufato qaybtan waxyaabo fara badan ayuu kaa siin doonaa. marka horeysa halkan waxaad ka dooran doontaa original language-ka yani the language-ka muuqaalkaagu ku baxayo ayaad meeshan ka dooran doontaa. inaga waa Soomaali already de Soomaali baad ku qori doontaa isaga meeshaasi kugu soo saari doona. sidoo kale luqadda doonaysid in lagu turjumo ayaad midani labaad oo target language-ka aad ka dooran doontaa. English baan tusaalahaan u baahanahay yani luqado aad iyo aad fara badan ayaa ku jira run ahaantii. English aynu ka dooranay. markaad English aynu ka dooranno
haddii ay jiraan yacni dad muuqaalkaasaan hal qof ka koobnayn uu dad fara badan ka kooban yahay meeshan ayaad ka dooran doontaa number of speakerska inta qof ay ku kooban yahay balse de inaga waa hal qof Sheekh Mustafa oo kaliya ayaa hadlaya brand face-ka iyo waxyaabaan kale muhiim ah waad ka soo dhaafi doontaa haddaad u baahan tahay in codka qura lagu turjumo meeshaan baad tig saaran doontaa ay ku qoran tahay translate audio only with no lip science waa yacni de fiidhiwan afka dhaqdhaqaajinaya in lagaba garanayn in yacni uu isagu duubay iyo in kale haddaad doonaysid in captions lagu raaciyana waa lacag oo yacni qaybta ayuun baad tig saaran doontaa haddii aad lacagta bixisay qaybtan kale waa free oo enhance voice haddii uu codkaaga doonaysid de inuu clear kaaga dhigo qaybtaa un baad tig saaran doontaa marka waxyaabahan kale oo dhan muhiim ah haddii uu sidoo kale yacni background music la socdo doonaysid inaad ka saartid tani saddexaad ee u dambeysay ku qoran tahay remove background music umaad ku dhufan doontaa intaa markaad dhammayso submit translation baad ku dhufani waqti yar baa sugi doontaa si toosana uu kugu samayn doonaa walow uu yacni uploading timekiisu yar dheer yahay xogaa yaroo time badana aad sugi doonto muuqaalkaagu intuu leegahay ay ku xidhan tahay haddaba maadaama inagu horaan ugu samaynay oo aynaan dee yacni process ku nayno tusno muhiimadu ahayd iminka qaybtaa projectiska haddaa ku dhufto waxaanu ka arki doonaa meeshan fiidiyooyadii aynu ku samaynay iminka labadaa fiidiyo waa Sheekh Mustafa midna carabiga yahay midna ingiliishka yahay baynu ku samaynay sidoo kale Sheekh Xamse Xabiib aynu fiidiyogani ku samaynay bal haynu yar eegno sidaad ka arkaysaan dee si toosa ayuu u turjumay marka yacni markuu kuu dhammaado uploadingku halkan boorta ku keeni doonaa waad arki doontaa yacni uploadingku qaabku ugu socdo markuu qaabkani kuu dul keeno keliya qaybtani Doland ee halkaa kaaga muuqata unbaad ku dhufan doontaa yacni resolutionkan intaad kula degayso ayaad dooran doontaa inkastoo 1080 MB-gu uu lacag yahay iminka Doland unbaad taaban doontaa qaabka ayaad la degi doontaa waxaad haysataa yacni 3 minute muuqaal gaadhay inaad ku samaysan kartid haddaba qaabka yare fudud ayaa muuqaalada loogu turjumaa AI-gan cajiibka ay hayjiin inaad aad uga faa'iideysanaya filaya muuqaalkeennan fadlan hadday tahay boqoshadeedii koowaad subscribe saar videogana like saar aad iyo aad baad mahadsantahay